wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhagax dhigay xarun lagu baaro caafimaadka xoolaha lagu iibiyo suuqa xoolaha ee magaalada Jowhar waxaana munaasabada dhagax dhiga goobjoog ahaa wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabelle Cabduqaadir Aadan Jeelle iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan gudoomiyaha degmada Jowhar Cabduqaadir Cabdulle Buurfuule iyo mas'uuliyiin kale maanta waxaan halkan ku dhagax dhigaynaa xarun lagu tuufaano loogu talagalay xoolaha sida geela iyo ariga iyo looda kuwaas oo aan uga go'an leenahay inaan u hubino caafimaadkooda aan check-in ugu sameeyno waxaan rajaynaynaa mustaqbalka insha Allah maxjiro waaweyn in laga dhisi doono hadii Allah idmo suuqa xoolaha ayaan joognaa waxaana maartay dhagax dhigkaas nala joogo wasiirka xoolaha ee maartay dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dhammaan maartay mas'uuliyiinta kala duwan oo heer gobol iyo heer degmo wax weyn oo noo soo kordhay maadaama maartay xooluhu suuqa ay ma hayaan caafimaadkooda iyo maartay in ayaga jeeg ab lagu sameeyo lagana shaqeeyo caafimaadkoodina waa wax ila maartay aad iyo aad u wanaagsan in anfacayana dadka maadaama gobolkan ama maartay hodan ku yahay xoolaha oo Ilaahay xoolo u siiyay meelihii waaweynayna waa gaari doonaa laakiin hadda maanta waxaan joognaa inaan maartay la dhiso xarun yar oo lagu ogaado suuqa xoolaha imaha ayaa maartay caafimaadkooda iyo waxooda lagu kontrolo wasiirka xanaanada xoolaha waa wasiirkii ugu horeeyay oo maartay bilaabay inuu maartay in howlihiisi howlqabadkiisa uu ka bilaabo inuu shaqadii ugu horeyso uu qabto maantana waxay ku aadan tahay oo isku soo aaday maalintii maartay xoolaha adduunka waa maartay 29 bisha Abriil aad iyo aad waa maalin ayadana aad iyo aad qaali u ah in maartay xooluhu iyo maartay waxa ay ummadda u tirayaan maartay looga sheekeeyo maanta waa maalin qaali ah waa maalin noo muhiim ah waa maalin taariikhi ah maanta oo ay taariikhdu tahay 29 Abriil waa maalintii xoolaha adduunka anagoo fursadaas ugu faa'iideysanayno waxaan dhagax dhignay clinic aan ugu talagalnay in xoolaha lagu ogaado caafimaadkooda maadaama adduunka uu ka soo yeeray xoolaha Soomaaliya lama aamini karo qabtaan waxa lagu sameyn doonaa neefka xoolaha markuu suuqa soo galo waxa jiri doonto meel baraag ah baraagtaas waxa shilinta looga dhaqi doonaa neefka kadib waxa la ogaan doonaa neefka caafimaadkiisa neefkiyo caafimaadkiisa la hubo ayaa suuqa loo gudbin doonaa insha Allah sidoo kale wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabelle iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa kormeeray dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqa xoolaha magaalada Jowhar xilli suuqa xoolaha magaalada Jowhar oo maanta ay ka socotay dhaqdhaqaaq ganacsi oo ka duwan maalmihii la soo dhaafay maadaama xilli roobaadkii uu ka curtay gobolka Shabeellaha Dhexe Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jowhar.